السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لها مسلمين تميلوا البوجوكتين. الله يدين كرامي، الله يدين شرفه في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. dad badan baa walaalayaal waxay sameeyaan waxay dhahaan markaad aragtid waxay leeyihiin dadkii way baaba'een, dadkii saanay noqdeen, gabdhihii saanay noqdeen, wiilashii way xumaadeen, saan iyo saan iyo saan. mar walbo aragtid negative buu sheegayaa, wax xun buu sheegayaa. walaalayaal waxaad ogaateen aslan dadka social media ku jiro waa dad yar, dadka fiican oo inta badan oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu yaqaan. waxa laga yaabaa inayna social media lahayn, inayna Facebook lahayn, inayna Instagram lahayn, inayna meelaha ka soo bixin. marka laba qof oo xun hadaad aragtid ma ahan dadkii oo dhan inay xumaadeen. qof dadka xadaya hadaad aragtid ma ahan dadkoo dhan inay tuuga yihiin. qof masaajidka hadii tuulo uu jooga laga xaday kabihiisa ma ahan dadka joogo dhan tuuga inay yihiin. dad wanaagsan oo fara badan baa jira walaalayaal, dad aad u wanaagsan oo fara badan ayaa jiro. marka qofka muslimka ama qofka muslimadda waxa laga doonaya mar walba uu isla fadhiyo ama mar walba uu social media ka arko qof baa iska soo fadhiisanayo, xumaan buu sheegaya, dad buu caynaya, qabiil buu caynaya, qoys buu caynaya, jamaaca masaajid buu caynaya. ma ahan dadka dhan inay ninkaas oo kale yihiin, laanu sideedaba qofka xun wuxuu u maleeyaa dadka dhan sidiisoo kale inay yihiin, qofka fiicanna wuxuu u maleeyaa dadkoo dhan inay sidiisa u fiican yihiin. walidaalika nabigeena Muhammad alayhi salatu wasalaam, nabiga magaciisa hadaad maqashidna ku sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri: idha qala ar-rajul, hadithki abi hurayra, idha qala ar-rajul halaka an-nas fa huwa ahlakuhum aw ahlakahum. labada riwaayad baa soo nabiga laga soo wariyay alayhi salatu wasalaam. qofka haduu yiraahdo halaka an-nas, dadku way baaba'een, dadku qof dad fiican kuma jiro, way xumaadeen, zaman xun baan ku jirnaa, saan weey oo negative uu sheego, qofka saa dhahayo qofka ugu horeeyo halaabay waa asagu yiri nabiga alayhi salatu wasalaam. idan qofka mu'minka maxaa laga doonaya? waxa laga doonaya walaalay qofka mu'minka ah mar walba inuu dadka u bishaareeyo, wabashiril mu'miniin wabashiril saabiriin. ilaahi subhanahu wa ta'ala nabiga sallallahu alayhi wasallam dadku u bishaareen jiray. walidaalika qof markuu yimaado magaciisa la yiraahdo dagaal wuxuu dhihi jiray may waa qabow, baruda mataqaana, saluma amrukum mataqaana. nabiga sallallahu alayhi wasallam uu badali jiray magacyada xun xataa salawaatullahi wa salaamuhu alayhi. qof fiican markuu u yimaado magaciisa ka helo wuxuu dhihi jiray magacaas oo kale ilaahi subhanahu wa ta'ala hana siiya alayhi salatu wasalaam. ilaahi subhanahu wa ta'ala marka wuxuu jecel yahay qofka mu'minka ah mar walba inuu dadka u bishaareeyo, dadka khayrka u sheego. hana u malayn inaad laba qof oo social media aad ku aragtay ama jamaacada masaajidka aad qof ku aragtay dadka dhan inay xun yihiin ama dadka dhan inay saas yihiin. dadku dad fiican baa ku jiro. nabiga sallallahu alayhi wa alihi wasallam xadiidkii kale wuxuu leeyahay: الخير في وفي أمتي إلى قيام الساعة. أمتي إذا خيرك وكجرا بوير إلا ما تقانا قيام الساعة أنت لقى إلى يوم القيامة. إذا خيرك أمته وكجرا، أهل خيرك هو يبديهين وحلقيها بقى إلينا موقد أي ما لها كهدلين إله ذا كحريهين ما هنقف حداد أركتيد أو ما تقانا اسكسر على ماشى أو ما تقانا أخلاق ذي سيحون تهي ذات كلن إني ساسو كليهين. أما قبل باتمت قف بكبها كاحذي أما وحبال لقاحذي ذات كلن إني توجيهين. ولذلك إن اسك إلى للنوي أرنتاس ولا ليال مروا بعرب كنا هي كلام كوناكسن وهذا الكنا وكسب عرب كنا تاسو إلهي سبحانه وتعالى نجوبت بادنا إلهنا سبحانه وتعالى ولا ليال نوجي علانه. marka maxaan laga rabaa anaga mar walba inaan dadka u bishaarayno, bishaarada iyo khayrka qofka jiran hatta qofka u sii dhimanaya hadaa aragtid ilaahay baa ku caafin waa ka bixi doonta insha Allah. Allah ku shaafi, Allah ku caafiyo. adoo arkaayo waxa laga rabaa qofka mu'minka marka mar walba inuu dadka khayrka ugu bishaareeyo. wabashir as-saabiriin wabashir al-mu'miniin. dadka u bishaareeya ilaahay subhanahu wa ta'ala sidoo jannada anaga kulligeen ba noogu bishaareeyo. dadka aan u bishaarayna insha Allah tabaaraka wa ta'ala mar walbana khayrka aan u sheegno. akhbaarta badan ee negative-ka ah oo la isku diray. walidaalika walaalayaal hadday wax xun ku soo gaaraan ha sii faafinin. dad badan baa sii ogaanaya oonan ogeyn. meesheeda delete ku samee. مثلا video baa ku soo gaaray dad baa wax laga sheegaya ama xumaan baa ku jirto. horta khayrka qofka markuu faafiyo khayrkaas wallahi wuu helaya, ajirkeedu leeyahay. sharta markuu faafiyana sharta wuu helaya. xumaantaas dadka sii gaartay inta qof ku sii xumaato, inta qof mataqaana khabarkaas xun ama mataqaan videogaas mataqaana wadnaha xanuuji u arko, adigana mataqaana wasrigi ajirkii waa la yeelanaysa. hal aayado quraan hadaa faafiso ilaahay wuu ku qoraya. hal qof oo qof caynaya hadaa faafiso caydaas ama ummad kala caynayo adigana waad ku leedahay ajirka ama wasriga ama dambiga waxa aad faafisay. markay xumaan ku soo gaarto meesheedaba delete ku samee, meesheeda ku tirtir. haba sii dirin ba dadka qaar Allah reer hebel waxay sameeyeen waxa laga yiri ma qashay wuu shiir gareynaya, comment baa laga bixinaya. waxa laga yaabaa hal video uu diray inuu 1 milyan qof oo adduunka dacaladeeda ku kala nool inuu gaaro. sharta markay ku soo gaarto meesheeda ku dami
meesheeda ku dilid garee si ayna qof kale u gaarin laakiin khayrka sii faafi ummadda usii gudbi dadka aan wax ka qaadanayno cilmigana aan iska dhageysano dadka aan ka qaadanayno mataqaanaa cilmiga aan ka dhageysanayno qof walba soo fadhiisay aan ka dhageysanay ahlul khayri ahlul ilmi dadka lagu kalsoon yahay diintoodana aan ka dhageysano tawfiiqda Allah na waafajiyo ilaahi aniga idinkaba Allah naga farxiyo ilaahi xumaatada Allah naga dulqaado ilaahi subhanahu wa ta'ala khayr بدن الله نسيه إلهي كودتك وبشارة الله نقل يا رب العالمين جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي هائل بركاته